بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan dadka Soomaaliyeed inaan kula wadaago in caawa kulan aan caadi ahayn golaha wasiirada ku ansixiyeen miisaaniyadda qaranka 2024 waa habeen weyn oo taariikhi ah oo miisaaniyadda aan ansixinay ay gaarayso xaddigeedu 1 bilyan iyo 25 milyan waxa aan rajaynaynaa in sanadaha soo socotana ay gaari doonto koror fiican samayn doonto si dhaqaalaheenu uu kobco waxa iyana aad iyo aad runtii arrin weyn u ah in saddexdii bilood ee la soo dhaafay dakhliga guduhu uu kordhay 25%. kororka guud ee miisaaniyadda uu dakhliga guduhu ka yahayna waa 22%. marka waxaad dareemaysaa in dakhliga guduhu xaddiga uu ka leeyahay miisaaniyaddeenu in si joogto ah ay mar walba kor ugu kacayso sanadkanna markii ugu badnayd dakhligu guduhu uu kor u kacay waa arrin runtii aad iyo aad in la bogaadiyo u baahan wax weyn ah oo taariikhi ah waxa aan filaynaa in dawladdu haddii hawlaha socdaan maraan fogeyn kharashaadkeeda oo dhan ay gudaha laga dabooli doono hadda waxaan ku guulaysanay in dakhliga guduhu uu ku filaado mushaharaadka iyo gunooyinka dawladda oo aanan kab uga baahnayn in marka laga hadlayo kharashka gudaha maxaan mushaharaadka inaynaan uga baahnayn kab arrintaasi arrin weyn weeye waxaan runtii aan jeclahay inaan bogaadiyo dadka Soomaaliyeed dadaalaya ee raba inay cashuurta bixiyaan waxaanan ku boorinayaa in cashuurta la bixiyo si adeeg dadka loogu celiyo waxbarashada kor loogu qaado miisaaniyaddanna mar labaad waxaa ku jira koror ah 3,000 oo macallin oo cusub oo dheeraada oo dawladdu ay soo kordhisay amniga ayaa ahmiyad weyn la siiyay miisaaniyaddan oo la rabaa maadaama dalku dagaal ku jiro in amnigu ciidamada iyo maxaan ku yiraahdaa kororka ciidamada ayaa iyana qayb weyn ku leh marka arrintaas ayaan rabay inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago waxa aan sugaynaa sanadka dabayaaqadiisa waxa weeye waa deyntii oo la cafiyo oo iyana December 13 ballanku yahay in la inaga dhaafo iyana guul kale iyo farxad kale iyo dabaaldeg kale weey aad baa u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.